السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa qaybteennii saddexaad qaybtan waxaynu ku arki doonaa sideeba data looga soo akhriyaa controllerka oo loogu akhriyaa loogu soo bandhigaa dhinaca viewga haddaba ASP-ga inta badan waa khasab in xog laga soo akhriyo controllerka oo la keeno viewga waayo hore waxaynu soo sheegnay in viewgu handle gareeyo requestka userka ee ka imanaya dhinaca viewga wuxuu u diraa baynu modelka markuu ka soo jawaabana waxuu ku soo celiyaa viewguna wuxuu ku soo celiyaa controllerka wuxuu u baas gareeyaa markaa viewga haddaba sideeba xog loogu baas gareeyaa viewga waxaa jira saddex hab oo la isticmaalo si data loogu baas gareeyo viewga kow habka koowaad waxaa la yidhahdaa view data view back iyo view model saddexdaa hab marka la doonayo in xog lagu baas gareeyo ayaa la isticmaalaa haddaba maxay kala yihiin aynu soo qaadana ka koowaad waa view datadu waa maxay view datadu horta waa dictionary of object macnaha waxa looga jeedaa waa key value pair waxa la qoraa shaygii waxa la qoraya view data dabadeedna waxa la raacinayaa magacii keygii baa la raacinaya markaas dabadeedna valuegi lagu qoraa marka waxa la yidhahdaa isaga key value pair waxaa loo isticmaalay isaga as a string key oo magaciisa qoraal ahaan double quoteski baa dhinacyada laga marinaya sidoo kale waxa u baahdaa marka la tago dhinaca viewga aynu soo bandhigayno typecasting oo hadduu xog fara badan kuu sido oo dictionary oo kale aynu kusoo bandhigayno waa in iyada lagu sameeyaa casting inaynu ku sameyno typecasting qodobka afraadna waxa weeyaan isagoo asal ahaan waxa uu ka yimaadaa dictionaryga la yidhahdo view data dictionary kalaaskaas ayuu ka yimaadaa marka qaab kale loo qoraa view data kadibna waxaa la qoraa keygii dabeedna waxaan raacinna valuegii taas baynu nidhi key value pairs loo yidhaahda weeyaan kadib baynu markaa odhanaynaa uma baahna isagu in la yidhahdo return to view iyo xotona xogtii already waxay noo sidaa intan ay noo sida view data message intaas xogtii inoo sida kadib waxay la tegi doonaa viewga sidee baynu viewga uga akhriyana marka iyaduna waynu arki doonaa insha allahu tacaala ka labaad waxaa la yidhahdaa isaga viewback isagu waa dynamic mainline isugu isbedbedela waana syntax ka fudud kan kale oo isagu uma baahna in typecasting iyo conversion lagu sameeyo waxaana la isticmaalaa isaga dynamic property weeyaan marka tusaale ahaan waxaad qoraysaa viewback dot dabeedna waxaan raacinaynaa magaciisi marka isagana intan asana loo qoraa kadib baynu valuega qorinaa marka hadduu list yahayna halkii listiga aynu kasoo akrinay baynu ku qoranaa listigii oo dhammaystiran hadduu single value yahayna single valuegaynu habka saddexaad ee wax loo modelku isagu waxa weeyaan waa strong typed object oo xogta lagu baas gareeyo inta badanna waxaa lagu isticmaalaa isaga daatooyinka maaragtay complicatorka faraha badan le kala duduwan iyo marka la doonayo in qaabka data structureka oo kale inaynu xog safe garayno xog fara badan inaynu dib geyno oo kale viewga databaseka xog noocyo kala duduwan waxaasoo dhan wuxuu ina siinayaa oo kale isagu waxaa la yidhaha compile time iyo checking oo ah in marka aynu raangaraynayna hadduu error tusaale ahaan data type kale aynu ku talagalay stringi oo kale haddaad wax kaloo kale ku akhrido tusaale ahaan error buu kugu soo celinaya waxaanu leeyahay waxa la yidhaha intelligenceku waa tool ku install garaysan CLI-ga ama command line interface-ka ama maxaa la yidhahdaa visual studioheena oo marka aad classka u yeedho ee dot tiraahdo tusaale ahaan wuxuu kuu soo taxayaa wixii ku dhex jira gudihiisa markaad magaca koowaad qorto inuu kuu soo akhriyo oo uu kuu sameeyo sidii auto correctionka oo kale inuu kuu sameeyo marka modelka la qoraayo dhinaca modelka markay joogna waxaan qori jiray classka magaciisa waxaan qori jiray public class dee magaca classka tusaale ahaan person kadibna waxaan qori jiray propertygii controllerka dhankiisa markaynu joogno ee aynu doonayna inaynu value assign garayno properkii waxaynu u yeedhi jiray tusaale ahaan variable baynu ku akhrisan jiray deedna waxaan qori jiray objectkii class objectkeeni kadibna waxaan class objectka uga dhex yeedhi jiray variableskii inoogu jiray deedna valuegaynu sidaa ugu assign garayn jiray inagoo marka dambe ku ritaan garaynayna xagga viewgaynu u diran isaga marka qaabka looga soo akhriyaya ka duwan yahay labadan kale ee viewback iyo view datadu nidhi iyagu uma baahna in la ritaan gareeyo copy ka qaadan doonaa viewback iyo xogtii noo siday waxaan leenahay copy
kadibna waxaan tegi doonaa viewgeena control right click baan siin doonaa masarkeena dina waxaan tegi doonaa go to view kadib halkan aynu ku qoran doono intiisa aynu usoo akhrino waxaan leenahay ma table baan ku bandhignaa mise list kaa doontaba ku bandhig tusaale ahaan haddaynu nahno list baan ku bandhigayna inaynu listigeennan markaynu qorro listiga waxaynu qori doonaa calaamadda adku wuxuu u bedelaa koodharkii lagu dhex qori lahaa html-kaaga ama webpage-ka dhexdiisa inuu u bedelo c sharp ahaan oo xagga waxaynu nidhi waa c sharp html ka calaamadda markaynu qorro kadib wuxuu noqonayaa c sharp buu noqonayaa koodhkeenu qoray haddaynu ka tagno wuxuu noqon doonaa html ka waxaan leenahay for each kadibna variable baad qori data type aan waxaan isticmaali variable items in xogta wax laga soo akhriya feedbackigii kadibna waxaan furaya calaamadayda curly bracketka deetana listigan ayaan ku dari doonaa halkan waxaan leeyahay li list xogtii markaasaan usoo akhriya waxaan leeyahay items variablekan la yidhaha items ayaa haddiisi waa luugii ka koowaad soo akhriya ka labaad marka for eachkuna wuxuu gaar u ahaan jiray had iyo goor listiga aareeyada waxyaalaha aynu ka soo akhriyo xogta intaa markaan qoro hadda projectkayga waan raag garaynaya dabadeedna waxaa ii soo baxay markiiba xogti waxaa ii soo baxay hargeysa burco berbera haddaan ordered list ka dhigo oon tago maxaa la yidhahda viewgaygii haddaan tago oon halkii ahayd unordered listka aan idhaa ordered list kadibna aan viewgaygii ku noqdo oon dhahda refresh waxaa ii soo baxaya 1 2 3 markaa hargeysa iyo burco iyo berbera oo xogtii aynu ka soo akhrinay viewgeennii oo aynu ku controllerkeeni ka soo akhrinay aynu keennay viewga waxaan ku noqon doonaa haddana controllerkeeni waxaynu doonaynaa inaynu iyadana aragno view datada si aynu uga soo akhriyeen bal aynu masar gaara samaysano si aynu masar u samaysano waxaan leenahay public action result waxaan leenahay using view data masarkeeni waxaynu u bixinay using view data kadib waxaan leenahay return view intaa markaynu samayno waxaynu qori doonaa haddana list kale waxaan leenahay string dabadeetna waxaan leenahay isagana lst equal new waxaan leenahay lst dot add haddana value waa habka labaad inuu qori karna iyadana maxaa la yidhaahdaa listigeen dabadeedna value siisana somaliland saasaynu wadanaa marka jabuuti ethiopia kenya marka aynu dhammayno waxaynu doonaa inaynu nidhaahno xogta waxaad noogu akhridaa view data waxaan qoranaa view data kadibna waxaynu qoranaa kiigii waxaynu leenahay iyadana countries waxaan leenahay equal lst laakiin waxaynu sheegnay view datadu inuu yahay dictionary islamarkaana u baahdo isagu maxaa la yidhaha conversion si aynu markaa viewga ugu soo akhrino hadda view ma haysano loo yaqaano using view data halkan inooguma jiro si aynu u samayno waxaan right click siinaynaa masarkeena dhexdiisii kan hore aynu joojino waxaan right click siinaynaa masarkeena dhexdiisii waxaan leenahay add view kadib waxaan leenahay add dabadeetna waxaynu dooranaa kanay ku taallo empty without model kadib waxaan leenahay add halkanaynu imaanaa marka dabadeetna waxaan leenahay isagana haddana usoo bandhigna mar kale dalalkii iyadana unordered listkii umaynu isticmaali waxaan leenahay add waxaan leenahay for each variable list in waxaan ka soo akhriyna view data laakiin hadda error baa soo noqday si aynu errorkan uga saarno oo conversionkii buu doonayaa wuxuu leeyahay imika dictionarygan aynu sidno waxa ku jirta dhaato laga soo baaskareeyey controllerka lana keenay viewga sidaa awgeed wuxuu inooga baahan yahay dhaatadani inay tahay dhaato lagu soo akhriyay listi ahaan marka waxaan ku samaynaa conversion waxaan leenahay listi string list deetana xogtii waxaan leenahay bracket baan kaga xidhaynaa listigeen errorka markaa uu inaga baxay intaa kadib waxaan qori doonaa listigeenii waxaan leenahay calaamadii add
list oo ah variablekan xogtii nusay inaan kusoo dhex display garee marka ka koowaad aad soo akhrido haddana noqo ka labaad tan listka ka haddana ka saddexaad haddana ka afraad saas u wadaya kadibna projectkeeni ayaan raagreynaa waa ka waa laynoo soo akhriyay somaliland jabuuti ethiopia kenya saasaa loo wadaya waxaan leenahay markaa saas ayaa loo wadayaa xogteeni haddaba waxaynu leenahay si aynu xogtaa iyadana wax uga bedbedelo xaggan aynu ku samayn karnaa tusaalahaan aynu nahna style dabadeedna aynu nahna kalarkeeda waxaad ka dhigtaa kala green maxaa la dhahaa font sizeko kale waxaad nooga dhigtaa aan idhaahdo 25 pixel yani waxaad doonayso halkanaad kusoo akhriyaysa aan refresh idhaahdo marka waxaan fahmaynaa inay qaybtani tahay wax ka imanaya dhinaca viewga markaa saasuu inoogu soo display garayso habka saddexaad ee aynu ku soo akhriyayna waxa weeyaan baynu nidhi inaynu isticmaallo model inaynu modelkan isticmaalno si aynu modelka u isticmaallo isagana aynu soo samaysana action method kale waxaynu leenahay public action method kadibna waxaynu u bixin doonaa kana using models leenahay using models waxaa leenahay waxaad kusoo ritaan garaysa view si aynu haddaba modelka isagana xogta ugu dhex qorro waxaynu leenahay ma list baynu ku qorraa marka hore maase list ahaan baynu isagana ku qorraa mise modelka laftarkiisa ayaynu gelinaa haddaynu doonno inaynu multiple value soo gelino iyo haddaynu doonno single value sida kanoo kale inaynu soo gelino haddaynu rabno single value inaynu gelino ku horeyno waxaan qori doonaa modelkeena waxaan leenahay waxaa la yidhaha student waxaan leenahay students equal new students kadibna halkan aynu ku dhex qorno variablekeena koowaad waxaa id waxaan leenahay idga waa 1 namekiina waxaynu odhanaynaa kasoo qaad inaynu khadar agekoo kaleynu qoraynaa waxaan leenahay kasoo qaad inaynu 29 agekeenu wuxuu ahaa data typekiisu wuxuu ahaa date type si awgeed wuxuu inooga baahanaya conversion waxaan leenahay convert dot to date time dabadeetana bracketkeenu kaga xidhnaa labada dhinac marka isagu maadaama date time yahay wuxuu inaga rabaa ageka inaynu soo bedela data type oo markii hore date time baynu isticmaalay halkan aynu teacherna waa number qura aynu gelaa marka halkan waynu bedelaynaa conversionka hoos baynu u akhriyana marka datadeeni waxaan leenahay 29 dadna waxaan ku xidhanaa break hadda xogtii waxay noo sidaa modelkeeni marka modelkeeni waxaan ku return garaynaynaa students return to view inland magaca soo koobiye halkan dhig kadib waxaanu samaysana viewgan right click add view ar baynu leenahay dadna waxaan dooranaa empty without model kani haddaba si isagu shaqeey kii hore waa ka duwan yahay kan saynu usoo bandhigno waxaynu u baahanaynaa inaynu qorro namespace saynu markaa namespaceka u samayno waa inaynu qorro waxa la yidhaha at model kadibna waxaynu qoranaa projectkeena magaciisii leenahay introduction to mvc demo dot modelis dot dabeedna waxaan qoraynaa classkii uu noogu jiray propertyadu intaa markaynu qorro hadda waxaynu qoraynaa markaa inaynu soo qorno detailskeeni masalan waxaynu odhanaynaa kasoo qaad table oo kale aan ku akhriyaynaa waxaan leenahay xagga hore th id dabeedna waxaan raacinaa value inaan dhahdo td dabeedna waxaan qorayaa at model dot id intelligence waxa weye dot markaan qoro inuu ii soo qoray haddana waxaan sameynayaa trkayga laba waxaan qorayaa isagana th alaysna waa namekii waxaan qorayaa markaa tdgii waxaan leeyahay at model dot name haddana waxaan qorayaa kii saddexaad waxaan leeyahay td isagana waxaan leeyahay at
age sorry waxaan qorayaa tiyaarkii isaga gaar baan ka dhigaya kana waxaan qorayaa tiyaarkii kale waxaan leeyahay th kana waxaan leeyahay isaga waxa weeyaan age kana waxaan ku qorayaa markaa tdgii tdga markaa waxaan leeyahay at model dot age daadna projectkaygii waan raan garaynaya saasaan markaa ku raan garaynaya waxaan leeyahay raac waa kan inoo soo aqriyay idgu waa 1 magacu waa khadar age waa 29 haddii aynu u baahna haddaba inaynu soo akhrino xog intan ka fara badan maxaynu iyada samayn karana waxaynu samaynaynaa inaynu list ku akhrino kuwan hadda waxaynu haysanaa tusaalaan studentka std1 ka soo qaaday waa inaynu xogtan list ku akrinaa marka waxaan leeyahay list deedna waxaan leeyahay student kadib waxaan leeyahay lst equal new lst markaad xogtan ii soo akhrido waxaad ku akhridaa lst dot add oo waxaan leeyahay xogtii uu ii sida modelkan variabladani variablekan xog biisa variablekan xog biisa variablekan xog biisa xogahoodii dhan waxay sida objectgii baan leeyahay soo qaad listigan iigu akhri marka koowaad alaad soo qaad valuega listiga iigu akhri marka haddii listiga la iigu akhriyey waxaan leeyahay waxa weyn std1 waa inaan haddaan mid labaad doonayo inaan qoro waa inaan intan lee qoraa waan koobiyeysanaya xagganaan dhiga waxaan leeyahay lst2 waxaan leeyahay qofka labaad waa 2 waxaan leeyahay siciid waxaan leeyahay 27 isagana saasoo kale aan leeyahay lst dot add kadibna waxaan leeyahay lst2 hadda markaa xogtii waxaa ii sidaa listigana ii sidaa waxaan soo qaadanayaa un listigaygii xagganaan dhiganaya haddii aan markaa viewga tago kani de waa ka duwanaanaya kan hore waxaynu akhrinay tableka kan isaga qaab ka duwan baynu u qorinaa marka koowaad kow waxaan soo qaadanaa tablekeeni waxaan leenahay thkii noo samee saddexdii noo samee variable id oo column namekiya name iyo age saddexdaa markaynu samaysano waxaynu tegaynaa markaa inaynu idhaa haddaba oo lugi karaynaa waxaan leeyahay for each dadna waxaan leeyahay variable lst xogta waxaa ii sida iminka modelka in model laakiin error buu soo saaraya suu errorka markaa uga tago sida halkan ka muuqata waxa uu leeyahay sida errorka ka muuqata waxa uu leeyahay xogtii waxaynu ku sidnaa list halkanna wuxuu soo akhriyaa single value model kaliyu soo akhriyay si aynu uga dhigna markaa xogtii miduu listigiiba lasoo akhriyo modelkan errorka uga baxo waa inaan halkan qoraa ama i enumerable ama inaan list ka dhignaa waxaan leenahay list dabadeedna halkan kaga soo xidhana kadibna modelkeennii baynu leenahay iminka carl bracketkii dabadeedna halkan aynu ku qoranana trkeennii koowaad waxaan leenahay xogta waxaad noogu soo bandhigtaa tdgii marka waxaan leenahay isaga at lst dot dana waan sheegnaa id dana control d intaynu nidhaahno oo aynu koobiyeyno baynu bedelanaa name iyo age kadib waxaan leenahay save dad waxaan leenahay projectkii noo soo raan garay waatan xogteennii hore wuxuu ku soo celiyey xogtii hore waa kan wuxuu inoogu soo celiyey xogteennii sorry intaa kadib waxaan raangaraynaa projectkeen waatan xogtii waa lainoo soo akhriyay laakiin hadda tablekeenu ma laha wax maxaa la dhaha stylina haddaynu doonna inaynu styling ku samayno waxaynu tegi doonaa tablekeena maadaama aynu nidhi contentiska waxaa inoogu jira bootstrapkii waxaynu u yeedhi doonaa un selectorka inoo bedelaya tableka waxaan leenahay class dibna waxaan qoranaa table dib waxaan leenahay table streaming haddaan hadda raangareeyo qaabkan uu noqonaya tablekeen waa kan sidan uu noqdo
haddaynu nidhaahno markaa waad kasii bedeshaa waxaad ka dhigtaa inaan nidhaahno waxaad nooga dhigtaa table bordering iyadana waa laga sii dhigayaa iyadad buu sii kala sasamey si alla sidaad doonto ayaan ka dhigana qaybtan haddaad doonto inaad durkiiso oo bootstrapkiisa css-ka qaabka u isticmaali jirnay ayaynu isticmaalna haddaad doonto headerkan oo kale inaad wax ka bedesho waxaynu ku soo daraynaa tablekeena qaybtan sare waxa la yidhahdo table head baynu ku darsaa tag la yidhahdo table head kadna class baynu ku samaynaynaa waxaan leenahay waxaad nooga dhigtaa bg dark tagaskana waxaad nooga dhigtaa white qoraalkana caddaan farta nooga dhig dabadeedna intaa headka oo dhan ayaynu kusoo xidhanaa kan intaa kadib waxaan leenahay refresh waxaan u samayn karnaa inaynu nahno hoover noogu sameeya inaynu nidhaahno wax alla wixii aad doonayso o dhan stylina oo wixii siyaasaska iyo lagu soo qaatay iyo bootstrapka